inkastoo daleelnaba dhigaan duciina nuucayman mar haddaan cilaaga daynihayn mawdka daaqarkiisa ragga haatan soo digaana yoomdani iyo xeesheene ciidamadii daraawiishta ee uu hogaaminayay halgamaagii diiwaanka galay allah u naxariistay sayid maxamed cabdulla xasan waxay ahaayeen mid ka mid ah quwadihii ugu ballaarnaa ee dhalanteedka ka dhigay danihii gumaystuhu oo ka lahaa soomaalida taariikhyahanada siday sheegaan kadib geeridii sayidka waxaa gebi ahaanba burburay ciidamadiisii weli ma isweydiisay maxay tahay guushii ugu weyneyd ee usoo hoyatay daraawiishta nala soco jawaabta su-aashaas si aad u hesho markaa xigaa dalkuu idinku odhan dunyo dhaafsadaye markaa xigaa dushuu edeenka rari sidaa dabeeraaye waxaa la sheegaa xornimadii markaanu qaadanay kadib mar in la waraystay mid ka mid ah ciidamadii daraawiishta oo la weydiiyey su-aal ah daraawiishta kama harin hogaamiyahoodii oo sayidkii bay la godgashay ee maxaa ka faa'iideen dagaalkii aad kula jirteen gumaystaha sooma habooneen inaad iska daydaan oo aad iskala heshiidaan raggaad isqabateen ninkii odayga ahaa baa ku jawaabay jawaab ka fajiciday dadkii su-aasha weydiiyey wuxuuna yidhi daraawiishu guul ama geeri ayay u taagnayd guushiina way gaartay waxaa la mooday inuu guusha ula jeedo xornimada la qaatay balse wuxuu farta ku fiiqay dhinacyo kale oo aan lagu baraarugsanayn wuxuuna yidhi ujeedadeena ugu weyneed waxay ahayd inaan tusno gumaystaha Soomaaliya inaysan ahayn meel sahlan oo si fudud loola wareegi karo midda kaliya oo nagu filan oo aan ku faani karno markii xornimada laga soo tago waxay tahay buu yiri in aan dunida tusnay in aan nahay dad aan sahlanayn wayna adkaan oo muddo ay qaadan in marka lagu soo fududaado Soomaalida ayuu warkiisii ku soo gabagabeeyay ووحي دربان سنة هياني دبني حياني dad bandhigan ka heshay saar like aragtidaadana ka dhiibo hana ilaawin inaad ku soo biirto saaxiibadeena adigoo subscribe ahaya dooro astaanta wargelinta si ay kuu soo gaaraan bandhigyadeenna sida hadda shaashada kaga muuqata mahadsan